Akhyaarey soo dhawaada dhammaan kuwa ku cusub janaalka iyo kuwa hor u joogayba. Maanta waxaan idin wadaagayaa dhowr xigmadood oo ku saabsan maanka iyo maskaxda, sabirka iyo qiimaha waqtiga. Fadlan subscribe saar hadda halkan ku cusub tahay. Haddii aad hor u joogtana muuqaalka sii share garee oo like garee. Maskax nadiif ah waa nolol farxad leh. Marka aad ilaaliso fikirkaaga, kana ilaaliso walbahaar iyo xanaaq, waxaad naftaada siisay fursad ay ku farxdo. Saaxiibayaal, xigmadani waxay ka hadlaysaa maanka iyo maskaxda. Maanka waxaa lagu quudiyaa aqoon, sida jirkeenu cuntada u quuto. Akhriska, barashada iyo fikirka wanaagsan waxay maskaxda ka dhigaan mid xoog leh. Xigmadan waxay ka hadlaysaa waqtiga. Waqtigu waa hantida ugu qaalisan, marka waa in si xigmad leh loo isticmaalo. Ciddii waqtigeeda ilaalisaa waxay ilaalisay nolosheeda. Haddii aad qorsheyso maalintaada, waxaad ka fogaanaysaa jahwareer iyo daal maskaxeed. Xigmadda dejinta maanka. Maanka mashquulsan, nabad uma seexdo. Haddii aad rabto degenaansho, waa in aad ka fogaataa fikirka badan oo aan qiimo lahayn, oo baro inaad nasato. Saaxiibayaal, xigmadan waxay ka hadlaysaa sida loo sabro ama sabirka. Sabirku waa daawo maanka dejisa. Markaad ku samirto nolosha, waxaad naftaada baraysaa dulqaad iyo deganaan.